بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا وحمد اسكال الله سبحانه وتعالى الله سونسي نعمة الإسلام والإيمان. ثانيا وحنا كان ugu mahad celinaya walaal muxsin ah oo ku nool dalka Ingiriiska qaasatan London oo maanta maamadii oo xanuunsanayd u soo sadaqaystay raashin iskugu jiro 10 kiilo oo bariis ah, 10 kiilo sokor ah, 10 kiilo bur ah iyo 5 kiilo baasta ah iyo hal cag 3 loo saliid ah. maamada sida aad la socoteen oo hore aan idinkugu soo gudbinay maamadii xanuunsanayd oo ishii oo wax nabarka kaga yaalay alxamdulillah maalintii aan soo gudbinay markiiba waa laga soo jawaabay sidaas ajligeeda isbitaalan u wadnay daawooyin waa loo soo qoray sida hore aan soo gudbinay alxamdulillah daawooyinkana bishaan hadda aan ku jirno waa bishii saddexaad oo hadda daawadii aan u keenay raashinna ma sha Allah oo nala soo dhiibay oo walaalka soo sadaqaystay oo asagana waa u keenay oo iskugu jiro sida hore aan u sheegay 10 kiilo bariis ay 10 kiilo bur ay 10 kiilo sokor ay 5 kiilo oo baasta ay caag 3 oo saliid ah marka walaalkan aad u mahadsan yahay qar ilaaha siiyo maamadan kulli insha Allah raashinkiina waa gadoonsinay wayna la wareegtay kulli insha Allah eedan dareenkeeda way ka hadli doontaa waana ku wareejinaa mikrofoonkaas eedan dareenkeeda ay ugu hadasho marka dhammaan ummadda muxsiniinta ah meel walba ay joogaan waxaan cod dheer ugu jeedinayaa qaasatan muxsiniinta ku nool dalka Ingiriiska London in maamadan ay soo caawiyaan maamadan garab istaag ay u baahan tahay maamadan waxyaalaha ay u baahan tahay waxa kamid ah caruur waxay haystaa oo agoon ah oo ay u tahay caruurta iyada hadda way kala fogyiin caruurtii waxay jiraan meel baadiye jiraan iyadan waxay joogtaa meel kale ay joogtaa waayo caruurta haday soo wado meel hooy ah oo munaasab ah oo iyada caruurteeda ay ku wada noolaa karaan ma haysato teeda kalena ma haysta caruurta inta ay keentaan waxbarasho ah uma heli karto mana u awoodo mana ka bixin karto waxbarasho hadda wadanka aan joognana waa waxbarashadeena waa qarash waay ilmaheena waa agoon marka asaas li ajligeeda maamadu waxay u baahan tahay hooy ay u baahan tahay qofkii boos u gadi karo ama qofkii nus boos u gadi karo oo uu dhisi karo oo maamadan ku ogaanayo marka insha Allah ta'ala soo dhaweynayna dhamaan ummadda muxsiniinta ah waxaan cod dheer aan ugu jeedinayaa in maamadan la garab istaago waxay u baahan tahay hooy ay u baahan tahay qofkii nus boos u dhisi karo oo uu gadi karo una dhisi karo waxa ku filan in nus boos loo gado loona dhiso ganacsi yar meesha loogu sii bilaabo way ka sii ganacsan kartaa ilmaheeda waxbarashadii wixii way ku geysan kartaa oo ilmahaas agoonta ah marka intaas wixii ka sii dambeeyo iyadana mikrofoonka wareeji doona insha Allah si iyadana dareenkeeda ugu hadasho. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.